dadkii oo safar bay u socdaan. Hadda Axmed FJ arkay safar salaama maalin waxa baxay hanta baxay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. saxaabta sharafta leh waa idin salaamay meel kastoo adduunka ka joogtaan. waa walaalkiini waa shanta Soomaali walaalkood King Mo official. aadoo mahadsantii kusoo dhawaada channelkeena muuqaalada cusub oo hadda bilaabmay reaction marwan isku dambeysay balse maanta walaalkeen oo xanuunsan kulliin waa taqaaniin waa liicato ayaa ka xumaaday xanuunkiisa marka sidaa darteed inaan u duceyno aan halkan u soo joogsaday. walaalkeen horta ilaahay ha caafiyo liicato ilaahay ku caafiyo liibaan saaxiib qaali ilaahay ku caafiyo wax kasta waa waqti ilaahay baa dambi dhaaf kaga dhigi ilaahay ha ku caafiyo cudurkaas ilaahay ka kor qaado. insha Allah waxaan rabaa muuqaalkiisi uu soo duubay in aan farcelin ka celiyo oo reaction ka bixiyo. marka maanta reaction keeni ayaa bilaabmay wali dad fara badan oo isku la jiraan ayarna hadda inaan runtooda u sheegno waxaan fara badan soo wadnaa liicato walaalkay ilaahay ku caafiyo marka hadda YouTube-kiisa galeynaa sifa aan u dhageysano sidoo cudurka ugu dhacay iyo sidoo ku helay because ani waxa ogaa asagoo laga baarayo mid kale dadkii oo safar bay u socdaan. hadda Axmed FJ arkay safar salaama maalin waxa baxay hanta baxay liicato sidoo kale sana safar waa safarka waa batay marka aragno liicato reactionkiisa uu soo dhigay. تعالى بركاته من الإسلام كان ملك استاذ بن الكجوكتان وأنا أقول لي أنا عليها كم قال لي عاتو وما سنتين لما أنتين أبى الإسلام يمد كلا حر إن أدلس عشري أرنير أو يوسف كرتي ما دام أدلس عشرين إن سفر هاي سفر كيجنا وكل مية هاي 24 hours كلية وحال ربينا نبري سفره إن شاء الله waxay u soo kordhay in shalay markii aan cudurkii aan corona ama saad oo aragtay ciwaanka kore waxa ku qoran wiilka walaalkeen horta waa 24 hours uga dhiman in uu baxo ayaa uga dhineed marka cudurka ayuu iska baaray cudurka corona uu iska baaray wallahi nasiib daro waxa la dhahay positive ya cudurka uu ku hayaa marka de ku ogaan cudurka sidoo uu hayo ma ku dib qaba ma suux u dareemay aan aragno abuuqi aan iska soo baaray testigiisa aan video idin soo dhigay in jawaabtiisi ay noqotay mid positive ah ama cudurkii la leeyahay waa laga helay. daqiiqada kadibna ay soo gaari doonaan insha Allah rag u qaabilsan dhankan caafimaadka dawladda Malaysia. alxamdulillah waxba waa wax Ilaahay igu talagalay waana ku qanacsanahay ismana lahayn cudurkan aan laga heli doonaa mise markii jawaabtaada ay soo baxdo kale wuxuu noqon doonaa in corona laga helo ismana lahayn sababtoo ah qof caadi ah waxban igama aan haleysnayn waa diga arkayseen video idin soo duubay in kasto aan ka yara gaabi dhankan Instagram-ka maadaama aan iska dareemay daal fara badan oo ah in garoon aad u weyn qofka ilaahay haduu ku qanacsan yahay asaga laakiin muu islaahay inuu cudurka ku dhacayo balse ilaahay haduu aaminsan yahay cudurka ilaahay uu ka qaaday ilaahay tala saaro ilaahay gaada qab insha Allah daawada ilaahay ayaa daawo kaga dhiga insha Allah. jawaabtaada ay soo baxdo kale wuxuu noqon doonaa in corona laga helo ismaan lahayn sababtoo ah qof caadi ah waxban igama aan haleysnayn waa diga arkayseen video idin soo duubay in kasto aan ka yara gaabi dhankan Instagram-ka maadaama aan iska dareemay daal fara badan oo ah in garoon aad u weyn
oo either side ah aan banooni ku soo dheelay haddana dabeel aad u xoog badanna ay socotay jiir go fara badanna aan dareemay marka ismaan lahayn macnaha madax xanuunka yarka ee ku imaanaya ama qandhada yarka ku haysa waa cudurkaas markaan dad cudurkaas qabana ama markaas haayeen aan la sheekaystana banooni dooday garoon weyn ku soo ciyaaray waxa la badan oo dareemay adiga xanuunka marka asaga muu filinayni inuu xanuunka corona uu yahay بسوسلها وحنون إسك عادي مركز سوري ولالكي معان سوري وحما وقتي إن شاء الله والدلال هاسكن نقلين إلهينا ترسارو ولا إسكا إلهي كاقايدون إن شاء الله وحباها مرقون إلهي قادا إلهي قومي آمين إلهي باكو عافين إن شاء الله ولالكي قالي تاسنا وفرين أليا أنكو صدري ولالكي إلهي ku cafiyo muuqaalkaas ma sii daaban kari because cudurkan cudur xun waaye intaas qof u dhimatay waa aragtay marka ilaahay baa ku bariyaa inuu ilaahay ku cafiyo walkii liixato ayaga ay dareemayaan oo kale oo kale in urkii uu ka haaday daqiiqadahaas oo kale inuu anin igu dhicin laakiin aniga caadigay aan ahaayo cuntadeedan aan cunayay indhahaygan caadi ahaayeen laakiin hadeertaan aan dareemayo marka in urkiina uu iga sii yaraanayo madax xanuunkii iyo qandhadina ay igu soo badanayso midda kalena waxa aad iyo aad ay sugayay safarkiga carigaas iyo turkiga dad badan oo ii taagnaa hadee maanta ay hurdayaan waan ogahay laakiin markay soo kacaan dad aniga dartii isku diyaar gareynayay soo dhaweyn qurux badan inay ii sameeyeen diyaar u ahaayeen ayagana waxaan leeyahay idinkana waa mahadsantihiin qalbiga idinka jeclahay oo sidaad ii dhiirigelinaysiin ama isku kii diyaarinaysiin oo ku mahadsantihiin tanna waa mid aniga caafimaadkayga micnaha ku xiran idinkana caafimaadkiina ku xiran oo lacala haddii la dhihi lahaa maanta laisma soo baareen oo waxaan aan qabi lahaa idin dhex imaan lahaan ool waa idin wada qaadsiin lahaa laakiin maasha allah هذا اللي لك علي هدرتان waxaan liisoo sheegay ragga shalay Instagram-ka ay ka arkayseen oo awal kaftameen dhaqaatiirta ahayn xitaa dhaqaatiirta Yurub oo kale waxaan maqlay xitaa in la isku dhawaanin qofka waxaas qabo kale in qofka dhakhtarka aan loo ogolaan in hoosta ka soo gasho marka dhaqaatiirta qaar aniga kaamirada qaadanayeen oo gacanta ku qaadanayeen oo isku soo duuduubayeen oo wada kaftameen maadaama aan isku sheegay in aan qof YouTuber ah meesh ku wada kaftameen Instagram-kayga soo dhigay oo kala socon kartaa marka aniga caafimaadkii hadeertaan marka caadi ah idin hadlaayo waa taam alxamdulillah waan fiicanahay marnaba ismaana dhahin cudurkii laga heli doona marka wayna dhacday insha Allah marka in oo liidaho positive tahay oo daqiiqada kadibna ragga dawladda ka tirsan bay soo gaari doonaan si ay soo wariyeen oo aan ku sii diyaar gareeyay oo kala ogaan doonaan in micnaha aan ah qof aad u liito ama qof aad u liito inaan ahay haddaan aad u liito waa la wadaya laakiin haddii aan caadi ahay oo kale normalkan aan ahay igu arkaan waxay leeyihiin gurigaaga isku karantiil oo meeshaada ku jir marka waa maasantiin reer Turkiga insha Allah waxa ogaanaysiin safarkayga maadaama cudurkiiba laga helay in dib loo yara dhigay wax walba dib loo yara dhigay insha Allah wax walba igu soo kordhana waa la socod doontiin hadduu eeb idmo midda kale oo aan aadka aan ula yaabana waxay tahay waxa rabo inaan idinka yar qosliyo dad waxaa jira aniga aan garbahayga ah oo marnaba aan agteeda laga weynin oo kala taqaaniin sida Tina Farayo kale awees duro kale dana aniga garbahayga laga waayay oo isdhaadeen liicaati dadka garbihiisa marka maadaama ayaga ay islahaayeen lii waa safar كل waxaa jira telefoonada laga qabanayo salaam calaykum hadda telefoon laga qabanayo marka kulli ayagana ilaahay ha u fududeeyaba marka ilaahay ha u fududeeyo labadii nin Hanad Umar iyo Ozina ayaga waa rag ayagan caafimaad qabo xaaladooda caafimaad tan ay tahay waxban aysan iska dareemin marka ayagana insha Allah waan la hadlay oo sheegay waxaan dhanmayo WhatsApp-kan kala xiriiray arrinkaas jiraan daawi heesta isku soo wada duceeyno Soomaaliya insha Allah ay soo wada duceeya waxana wiilkiini kulli halka idinka farxad gelin jiray hadii alla ijeclaadana wax kaas ma fahamtay waligeed baa micnaha safarkaas lagu wada jiro lagu kala horeeyay reer Turkiga wax u sheegay insha Allah in idin imaan doono oo idin soo socdo oo niyada aad igu wada heesin hadda igu heesin niyadina aad igu wada heesin insha Allah halkaana waa lagu dadaali doonaa in caafimaadkayga uu dib u soo laabto duu eeb insha Allah midaan ilaa waxay tahay horta oo muhiimka ah ay tahay waxa diin niyada lagu haayo badana lama helo
maasha allah taageerayaashida halkaas niyadda igu wada haayeen halkaana dadka ila joogana dad aad ii jecel oo ii dhow ahaayeen ayagana aan marnaba aan ku qanacsanayn inaan halkaan aan ka tago ayagana niyadda igu haayeen marka maan filanayn aniga cudurkaana in laga heli doono marka dee waa liigu dhegan yahay inaan fahantiin rajeynaya midda kaloo jirta waxay tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa fariimaha ay soo gaaray oo ah in Istanbul looga imaanayo gobol to gobol soo dhaweynteeda marka tan ma noqon karto mid ciyaar ah ama waxaan idinkaga dhigayo in ay tahay inaan idinku dheedheelayo tigidhkayga wixii oo la ii wada jarnaayeen deetana laakiin qadar rabbiyaa dhacday oo ah in cudurkii laga helay marka alxamdulillah hadda furuuteeda u jeediin akaan haddeertaana ka dareemaya dildilaac aad u weyn awal hore markii la dhaho bal urki inuu ka taga fiiri kareen caraf badan ay ag yaalay oo ursanaya laakiin xaggaas asoo yaalo isu carafay laakiin sanka marka iska galiyo kadib aan arkay caraftiisa insha Allah isku soo duceeno midda kale oo aan la dardaarmay waxay tahay oo halkan hadda u soo fadhiistay reer Malaysia Soomaalida ku nool arigan halkan Malaysia Soomaalida ku nool way dhayalsadaan cudurka way dhayalsadaan qaarkoodna guryaha la jiifaan oo sariiraha la saaran yihiin ayagoo ku leh hargaba ay haayeen marka isku daya inaad la xiriirtiin meesha caafimaad in kugu dhow de runta la isku sheego walaalayaalo ma fahanteen dadkan dad dalkooda waxa waa iyo dadkooda ka fakaraya adigana ina meesha dhex fadhisid ma aha ma fahmaysin marka insha Allah waxaan rajeynayaa haddeertaan fariinteeda inta daawanaysa in aad iska gaartiin xitaa hadduu qof yar ama qandho yar ay ku hayso marka waa maasantiin insha Allah isku soo wada duceeno aad iyo aad ayaa idin salaamaya